ciidamo dheeraad ah oo wata hub culus iyo gaadiidka gaashaaman ee dagaalka ayaa dowladda federaalka Soomaaliya u dirtay degmooyinka laga soo galo caasimadda sida Kaaraan, Deniile, Balcad, Gubadley iyo Afgooye. ciidamadan ayaa la sheegay in loo diyaariyay ka hortaga xaalado amni oo ka dhalan kara marka la gaaro 15 May oo ku beegan dhamaadka madaxweynaha rasmiga ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. sidoo kale dowladda federaalka ayaa ujeedadeeda ciidamadan ku sheegtay xoojinta difaaca iyo sugidda amniga wadooyinka laga soo galo Muqdisho si looga hortago in kooxo hubaysan oo la sheegay inay taageersan yihiin mucaaradka ay gudaha u soo galaan caasimadda Muqdisho. tani waxay ku soo begmaysaa xilli uu cirka isku sii shareeray khilaafka siyaasadeed ee ka taagan nooca doorasho ee dalku u aadayo, iyadoo mucaaradku ay si cad ugu hor yimaadeen qorshaha doorasho qof iyo codka halka dowladda ay ku adkeysanayso hirgelintiisa. tallaabadan ayaa loo arkaa mid lagu xoojinayo amniga caasimadda iyo deegaanada ku dhow, balse sidoo kale waxa ay sare u qaaday walaaca laga qabo isku dhacyo suurtagal ah maadaama dhinacyada siyaasadeed ay weli isku mari laayihiin hannaan doorasho oo la isla wada ogol yahay. wararka ayaa waxa intaasi ku darayaan in dowladda federaalka ay wado qorshayaal dheeraad ah oo lagu xakameynayo hubka sharci darrada ee ku jira magaalada Muqdisho, iyadoo la filayo howlgal balaaran oo hubka dhigis lagu sameynayo saraakiil iyo maleeshiyad aan si toos ah uga tirsaneen ciidamada rasmiga ah. saraakiisha lagu beegsanayo tallaabadan ayaa waxaa ka mid ah Janaraal Sani Cabdulla Gaab, inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin faahfaahinta eedeymaha loo jeedinayo. muddooyinkii dambe waxaa soo baxayay khilaaf culus oo u dhexeeya Janaraal Sani Cabdulla Gaab iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo shakhsigan lagu tuunsan yahay in uu garab sii karo mucaaradka, kuwaas oo ku doodaya in 15 May haddii la gaaro dalka ay geli doonaan xaalad dagaal, sidoo kalena filada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay si xoog ah uga saari doonaan. dhanka kale waxaa isoo taraya calaamado muujinaya isbedel amni iyo mid maamul oo ka socda gudaha caasimadda, kuwaas oo ay ka mid yihiin qaadis bedelo degdeg ah iyo awaamir cusub oo ka soo baxaya taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. tallaabooyinkan ayaa loo fasirin karaa isku day lagu adkeenayo kala dambeynta ciidamada iyo in laga hortago kala qaybsanaan ka dhalata hay'adaha amniga, taas oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xoogga u saarayo marka la gaaro 15 May in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aan la kala qaybin, taas oo ku doonayo in xukunka uu ku sii joogo. xogo hoose ayaa sidoo kale tilmaamaya in kulamo xasaasi ah oo si gaargaar ah ay u leeyihiin madaxda dowladda iyo saraakiisha amniga, kuwaas oo diiradda lagu saarayo sidii loo wajihi lahaa xaaladda siyaasadeed ee cakiran iyo suurtagalnimada mudaharaadyo ama dhaqdhaqaaqyo hubeysan oo ka dhaca caasimadda. waxaa intaasi dheer in beesha caalamka ay si dhow ula socoto xaaladda, iyadoona kulamo ay la yeelatay mucaaradka Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya, taas oo ay ku doonayso in ay isku soo dhaweyso mucaaradka iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoona beesha caalamka marar badan ay ku baaqday in dhinacyada siyaasadeed ay ku xaliyaan khilaafaadkooda wadahadal isafgarad si looga fogaado qallaase amni oo dib u dhigi kara horumarka dalka. sidoo kale waxaa soo baxaya in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo in doorashada guud ee madaxweynaha uu qabto bisha December ee sanadkan gabagabadiisa, taas oo maalmaha soo socota ama maanta la soo saari doono jadwal doorasho guddiga qaranka ay ku shaacinayaan sida doorashooyinka dalka uga dhici karaan, iyadoona loo malasan yahay dhawaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dadka shacabka uga dareerayaan dowlad goboleed dalka oo ay ku dooranayaan xubnaha golayaasha deegaanka, kuwaasoo haatan si weyn looga dareemayo deegaanada maamulka Koonfur Galbeed oo ay ka socoto isku diyaarintii ugu dambeysay. dalka ayaa waxa uu galaya xaalad siyaasadeed oo aad u kacsan, iyadoona madaxweynaha rasmiga ah ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu gabaabsi yahay oo ku eg yahay bisha soo socota 15 May, iyadoona wax ka yar 17 cisho ay ugu harsan tahay madaxweynaha rasmiga ah madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud.